Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waxaan dhiganaynaa Unit 4 Grade 9 Unit 4 baan bilownaa insha Allah. Solving inequality xalinta dheeliyada. Markaas insha Allah waxaan soo dhamaynay Unit 3 wahaa. Haddaan dhaho hadda 5 iyo 8 waxaan u isticmaalnaa daily. Markaan dhaho inequality daily weeye ama ka yar ama ka weyn, waxaa weeye unitka saas ku saabsan yahay. Ka weyn, ka yar ama leeg, ka weyn ama leeg baan dhahnaa. Haddaan A dhaho iyo B aan u sameeyo, xagga dhexda aan xidho markaa si aan u ogaano. Marka xaggii ugu hooseysay ayaan kasoo bilaaban A, B, C, D baan dhahayaa. Kabacdi 5 iyo 8 kee weyn si aan u sheegno maxaan dhahnaa 5 waxay ka yar tahay 8 baan dhahnaa. Haddii aan dhahnaa intana waa -5 -8 haddaan dhaho maxaan dhahayaa -5 iyo -8 -5 baa weyn, -8 waxay ka yar tahay dhahayaa intan, waayo -5 baa hadda weyn. Marka haddii aan jeexo fiirso, waa 5 kana waa 8 halka kana waa 0. Marka kee weyn waa 0. halkaana waxaan dhahayaa marka waa less baan dhihi, halkaan less halkana xaggan kalena greater baan dhahayaa. Xaggaas waa halka yar, halkana waa halka weyn. Marka 8 iyo 5 waxay ka yar tahay 8 oo waa sax. Laakiin markay tahay -5 iyo -8 halka zeroga ugu dhow ayaa had iyo jeer weyn. Waxaan dhahayaa waa 0 -5 xagga shana -8 marka waa less baan qorayaa. Xaggaasi waa halkii yareed weji waa less. Markay less tahay kee weyn marka labadooda 5 taa weyn. 5 -5 iyo -4 laftigeedana -4 baa weyn weji. -4 iyo -3 na -3 baa weyn. Halka zeroga ugu dhow weji marka 5 baa ka weyn baan leenahay. Waad fahantaan u maleynayaa intan. Marka waa B, waa ka doordooradayaa B baan dhahnaa markaasna. Haye haddii aan dhahno iminka labadooda waa mid waa positive midna waa negative. Ka hore positive ka dambana negative waa. Way la fahantaan u maleynayaa si toddobaadkii waad kusoo dhigatay head ama 8aadkii waad kusoo dhigatay cutubka labaad kusoo dhigatay toddobaadkana cutubkii afaraad buu ahaa. Haddaan dhaho 7 iyo minus labadna kee maxaan dhahayaa kaa markaa 7 waxay ka weyn tahay dhahayaa. Sumadda waa qaabka loo isticmaalayo. 7 weyn baan dhihi, 7 is greater than baan dhihi maxayna 4. Laakiin kan maxaan dhihi 7 is less than baan dhahayaa. Markaa kana waan xidhayaa, kana waa intaas, kana waa saasaan dhahayaa. Waad fahantaan u maleynayaa. Waa ka yar iyo ka weyn. Waa halkii ugu hooseysay aan kasoo bilaabay si aad u fahantaan insha Allah. Kan waa hordhac, waa cashar aad muhiim u ah. Haddaan dhaho x is greater than 3 saan u isticmaalayaa. Markaan jeexdo waxaa jira wax la dhaho interval clause wax la dhahay jira. Marka 0 xaggan 3 bay iga xigtaa. Halkan waa positive infinite, halkana waa negative infinite baan dhahayaa marka. Markaa sidaa dhaho waxaan dhihi sidaa dhaho halkaa 3ga markuu greater than yahay waxay noqoni open bay ahaani bes waa open halkaas marka way furan tahay weji. Adiga arkay. Had iyo jeer halkaas markay tahay greater than ama less than meeshu waa iska open. Laakiin hadday noqoto greater than or equal to open ma noqonayo marka. Ma noqonayaa close ma noqonayaa. Marka imika intervalkii ayaan ku dhex jirnaa wali. Waa saan u qori lahayn haddii inta la isiyo x is greater than 3 la dhaho oo la dhaho u qor intervalkiisi caadiga ah sidii loo qori lahaa weji. Hadhowna domain iyo range marka la raadinayo qaabka loo isticmaalo weji maxaan dhahayaa marka waa 3 positive infinite. Marka waa open way kani. Open maadaama yahay caadi ma dhahayaa bes open. Kana saan ma dhahayaa. Maxaa yeelay waliban waxaan dhahnaa interval baan dhahnaa notation. Interval notation baan dhahnaa. Interval notation ayaa loo yaqaanaa. Marka imika haddaan dhaho x is greater than or equal to 2 markaan jeexdo hadda eeg markii hore greater than buu ahaa. Hadda laakiin waa greater than or equal to intaasaa raacday ama ka weyn ama leeg baa raacday. Eber 2 qoraya. Xagga waa positive, xaggana waa negative infinite. Kabacdi haddii la dhaho sheeg intervalka
notationka markaan sheegayo intaa yare meesha raacday ama leegtaas ayaa sababaysa maxay inuu noqdo close inuu noqdo. Kii hore open buu ahaa oo waxay ahayd greater than kan laakiin waa greater than or equal to weji. Waxay ka weyn tahay ama leeg tahay laba weji. Kii hore laakiin ka weyn tahay waxay ahayd kanna waa ama leeg tahay. Intaa yare leegtay raacday ayuu la noqonayaa maxayna yani close buu noqonayaa. Wuu xidhmay markasid kan markaa wuu xidhmay waa 2 positive. Labada markaa xidhnaanaysa eberku wuu furan yahay laakiin waxaa xidhnan waa labada waxaa xidhna maxay bracketkiisu xidhan yahay waa labada. Waxaan dhahnaa close baan dhahnaa marka close aan qoro waa close wejiya close interval baan dhahnaa meesha way xidhan tahay. Way la fahantaan u maleynayaa waad fahantaan u maleynayaa halkaas hadii la dhaho x is less than 1 or x is less than or equal to minus 4 3 badhe maxaan dhahayaa markaan jeexanayo sidan ma u jeexday eber halkana waa 1 halkana waa positive halkana waa negative minus xagaasna waa xaggii minuska markuu leesantan yahay laakiin imika x waa maxayna waa open x is less than 1 waa open way maxaa yeelay waa open halkuu ka bilaabanaya halkan markaa u dhaqaaqaya halka ugu yar buu soconaya halkan kale waa greater than waayo kan kale waa minus 3 halkaa leesantan u soconaya maadaamuu leesantan yahay waa saasaan dhahnaa markaa negative noqonaya maxaan dhahnaa markaa waa negative infinite open baan dhahnaa laakiin waa open ya labadooduba waa open markaa kan waa open negative infinite 1 open way waayo ma xidhmayo maxaa yeelay xidhitaanka sumadaasoo keliya taa keenaysa. Haddaan dhaho lacala kaa kale aan jeexdo kana waa maxay waa 0 negative 3 baan dhahay infinite iyo positive marka kan muxuu imika noqon sumadaa yare ka yar ama leeg baa keentay maxayna inuu noqdo waa kawaaniga xaqiiqa ku saaray taasaa keentay marka waa close way. Markuu close noqdo maxaan dhahayaa close markuu yahay la weydiiyo interval notationka wuu xulan yahay waa sidii kii hore buu xulan yahay laakiin waxaa ka horeynaya negative halkan markaa halkuu soo dhaqaaqay waa halkan maxaan dhahayaa waa 3 close buu noqonayaa close kana xidhan laakiin kan kale negative infinite kuu furan yahay markaa kaman xidhayaa saddexda waad fahantaan u maleynayaa ayay markaan saa dhaho intaas waa inta halkan waxaan ka baran doontaa dhammaan xisaab qaab aad iyo aad ugu fudud waa real matters private school bal haddaan nidhaahno se ka waran agis hal minus 1 iyo 4 haddaan dhaho kan seed u sawiraysaa haddii lay dhaho maxaan dhihi lahayn waxaan dhahnaa marka ugu horeysa waan wareejinaynaa sumadan agis waxaan dhahnaa dhan kasta minus baan u qaybinaa inta haddaan soo qaato maxaan dhihi minus baan ku dhufay dhan kasta soo imika saa maaha markuu minus noqdo sumadu way isbedeli doonta agis is greater than minus 1 baan dhahnaa waayo markii hore less than buu ahaa laakiin waxaa yaraa iyadoon baa yaraa halkaas u socdaa marka agis way ka weyn tahay bay noqonaysaa maxayna minus 1 markana minus 1 way ka yar tahay weji markana way ka weyn tahay kala hormarin kartaa weji yaa markaan dhaho sidaa kan kale haddaan usoo dhaqaaqa isagana waxaan dhihi agis intaa ma dhihi bas intiisii ma dhihi kana waa saa kana waa saas kabacdi haddaan dhaho oon dhaho si aan u jeexdo si aan usoo jeexo oon u qoro interval notationka waxaan dhihi ma qorto waxaan dhahayaa saan u jeexdo agis is greater than minus 1 and baan dhahayaa agis is less than or equal to 4 baan dhihi markaa sidaa dhaho aan saa u qoro ayaan midi waa open imika markaa haddaad jeexdo sumadan ka yar iyo ka weyn had iyo jeer u fiirso mid imika waa open midna waa close page minus 1ku waa open oo wuu soconayaa kan kale 3gana isagu waa close wuu xulan yahay waa minus 1ki waa open wage waayo greater than baa la dhahay bas
laakiin kanna maxaa nidhi waa less than 10 or equal to. Marka negative 1 buu kasoo bilaabmi ilaa 0 gu socon, kan kalena 4 ku kasoo bilaabmi halkaa dhexda markaa weji. Halkaana uma dhaafaya, kani waa open, kan kalena waa close. Open kanna waa close, waad iga arkaymaa, waad fahantaan u malaynayaa. Marka midna xagga ma dhaafayo, midna xagga ma dhaafayo. -1 ma dhaafayo waayo x-taa weyn. Xagga kalena x maxay ka yartahay 4 ma dhaafayo. Marka maxaan dhahayaa waa -1 waa open, kan kalena close baan dhahayaa. 4 close. Sumadu waa muhiim had iyo jeer, close baan dhahayaa. Waa real maths private school oo leh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.